dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta sidaan kusoo xusnay muuqaalkeenii kan ka horeeyey waxaan arkin doonaa cashada cybersecurity-ga maadaama aan ku fargaraynay inta ugu badan ee basics-ka ah waxayna waqti siin doonaa qaybaha kale teknolojiyadda ee iyana muhiimka ah okay muuqaalkan waxaan kusoo qaadanaynaa mid ka mid ah mawduucyada sanadihii ugu dambeeyey caalamka aad ugu soo badanayay waana artificial intelligence waxyaabo hore kusoo tilmaamnay balse muuqaalkan aynu si faahfaahsan uga hadli doonaa okay haddaba sababta aynu soo qaadanay artificial intelligence-gu waynu leeyahay faa'iidana u tiro badan in badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeedna aysan uga faa'iidaysan sida ugu habboon maadaama aysan fahmin waxa uu yahay iyo qaabka loo adeegsado marka qaybaha hore muuqaalkan waxaan ku baran doonaa waxa uu yahay AI-gu taariikhdiisa qaybihiisa ChatGPT iyo sida uu shaqeeyo awoodaha uu leeyahay ChatGPT iyo sida uga faa'iidaysan karto ChatGPT adigoo u adeegsanaya shaqooyinkaaga maalinlaha okay haddii ka bilowno waa maxay artificial intelligence-gu artificial intelligence oo laga soo gaabiyo AI waa mashiin laga mitaalayo bini'aadamka wax buu baran karaa wuxuu samayn karaa sababayn wuxuu xallin karaa problems wuxuu qaadan karaa go'aamo kuwani waa astaamaha garaadka bini'aadamka fikradda artificial intelligence-gu ma ahan mid dhowaanahan soo baxday oo cusub balse waxay tixraacaydu gaadhayaa 1950-yadii xilligaas ay saynisyahanadu bilaabeen inay daraaseeyaan samaynta machines leh astaamaha bini'aadamka waxaanu AI-gu ilaa iyo xilligaasi marba sameynay isbedelo kasoo bilow programmes xallin kara shaqooyin bini'aadamku qaban jiray ilaa systems waaweyn oo samayn kara shaqooyin ay bini'aadamku u arkayeen xilligaasi waxa aan macquul lahayn waxaa jira 3 nooc oo loo qaybiyo artificial intelligence-ga waxayna kala yihiin narrow ama weak AI general AI ama strong AI iyo super intelligence AI narrow AI sidoo kalena loo yaqaano weak AI waa garaad macmal ah kaasi oo loo sameeyey inuu qabto shaqo cayiman oo xadidan waa nooca ugu badan ee la isticmaalo narrow AI-ga waxaa ka mid ah AI iska qabto shaqooyinka khaaska ah sida kuwa aqoonsada wejiyada oo kale ama facial recognition-ka aqoonsiga codadka sawirada iyo wixii la mid ah narrow AI-gu waxa uu shaqeeyaa hab ah machine learning algorithm oo lagu tababarayo xog aad badan kaasoo laga rabo inuu aqoonsado si isku xidhan yihiin ama pattern-ka u leeyihiin iyo inuu sameeyo saadaalino ama predictions isagoo adeegsanaya xogtaasi lagu tababaray narrow AI-gu ma qaban karo shaqo ka baxsan taas lagu tababaray faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay mid ka dhaqso badan kana saxsanaan badan ama accuracy badan bini'aadamka tusaale ahaan sistamyada lagu aqoonsado wejiyadu waxay iskaan garayn karaan kumanaan weji daqiiqada gudahood sidaas la mid ah codadka kale wuxuu narrow AI-gu qaban karaa muddo yar gudaheed nooca lagu magacaabo general AI loona yaqaano strong AI waxaa loo qaybay inuu qabto shaqooyin la mid ah kuwa u baahan garaadka bini'aadamka waxa uu awood u leeyahay inuu sameeyo sababayn ama reasoning waxa barto fahmi karana konseptiyada u baahan faham bini'aadam sida kuwa isku noqnoqonaya oo kale ee aan tooska ahayn hadafka general AI-guna waa inuu noqdo mid la mid ah bini'aadamka xitaa inuu fahmi karo luqadaha kala duwan qaban karana shaqooyinka bini'aadamka mid ka mid ah faa'iidooyinka general AI-gu waa inuu noo qaban karo shaqooyin u baahan hal abuur iyo faham xeel dheer tani waxay noo furaysaa inaynu horumar ballaaran ka gaari karno caafimaadka waxbarashada teknolojiyadaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha haddaba waxaa iyana dhinac socota cabsida ah in general AI-gu naafo garaadka bini'aadamka sababana shaqo la'aan maadaama uu qaban karo shaqooyinka bini'aadamka tusaalayaasha general AI-ga waxaa ka mid noqon kara AlphaGo oo ah mashiin ay develop garaysay Google DeepMind kaasi oo ciyaari kara board gameska una ciyaari kara professional level waxaa sidoo kale general AI-ga ka mid ah ChatGPT oo aynu qaybaha dambe kaga warrami doono qaybta saddexaad ee artificial intelligence-gu waa super AI ama super intelligence teknolojiyadani waa mid ka sarreysa garaadka bini'aadamka mana ahan mid weli la gaadhay waxaana lagu talagalay in lagu qabto shaqooyin ka baxsan awoodaha bini'aadamka shaqooyinka loo adeegsan doono waxaa ka mid noqon kara daaqaayadda dawooyinka iyo qaliimada u baahan u fiirsasho aad u badan iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha oo loo adeegsan doonaa intaas haddaynu ka nimaadno artificial intelligence-ga aynu wax ka ogaano ChatGPT waa language model ee horumarisay ama develop garaysay shirkadda OpenAI haddaba waxaa laga wadaa language model oo nooc ka mid ah artificial intelligence-ga kaasi oo lagu tababaro inuu fahmo oo u hadli karo qaabka bini'aadamka waxaad weydiin kartaa su'aal isna wuxuu kugu jawaabi karaa sidii qof oo kale yacni bini'aadan maahan ee wuxuu raacayaa wixii lagu traingareeyey ChatGPT waxay ku dhisan tahay artificial intelligence-ga qayb ka mid ah oo lagu magacaabo transformer model khaasatan GPT ama generative retraining transformer marka si fiican u fahan retrained ChatGPT waxaa lagu traingareeyey xog aad u tiro badan oo ka kooban qoraallo
taasoo laga keenay internetka. waxaana la baray qaabkay xogtan isula xidhiidhsan tahay ee u taallo ay baatinka u leedahay macnaha xogtan iyo xitaa qaabka wada sheekaysiga. tusaale ahaan qoraalkani waa mid xanaaq muujinaya soo mid farxad muujinaya markaftamba mise waa hadal dhab ah iyo wixii la mid ah. markaa ChatGPT su'aal weydiiso waxa uu sameynayaa inuu analyse-gareeyo su'aashaasi kadibna uu soo saaro jawaab celin isagoo qiyaasaya erayada isla isku xigi karaan ay macnaha samayn karaan. balse hal mid aynu fahanno, ChatGPT wuxuu soo saari karaa hadal si weyn ugu eeg ka bini'aadamka oo xitaa adag tahay in la kala saaro. balse ChatGPT si dhab ah uma fahansana macnaha xogtaasi, laakiin wuxuu iska yeelayaa mid fahansan isagoo raacaya baatinka la baray ee uu ku dhaqmayo. mawduucaas ChatGPT inuusan xogtaas si dhab ah u fahmin laga yaaba inay dad badani fahmi waayaan maadaama ChatGPT uu siinayo hadalkii saxda ah ee ku habboonaa su'aashii ay ChatGPT weydiiyeen. balse ChatGPT iyo kuwa la midka ahba ma lahan wax awood ah oo si dhab ah ugu fahmi karaan, balse waxay raacayaan wax baatin la baray. haddii aad sii baadho machine learning-ka iyo siduu shaqeeyana wax badan ka fahmi doontaa. haddaynu ka hadalno saameynaha ChatGPT yeeshay ama guud ahaan artificial intelligence-gu, waxaynu ka xusi karnaa inuu kor u qaaday wax soo saarka. tusaale ahaan caafimaadka kale waxaa la horumariyay algorithms dhakhaatiirta ka caawinaya inay aqoonsadaan xanuunada iyo dawooyinka ku habboon, weliba heer saxsanaan oo aad u sarraysa ay ku qabanayaan hawshaasi. dhanka dhaqaalaha oo kale, shirkadaha iyo dowladuhu waxay artificial intelligence u adeegsadeen inay ku deeq qaadaan musuqmaasuqa iyo lacagaha sida khaldan u bax kulana socdaan dhaqdhaqaaqa lacagahooda. maalmeedkeena caadigaana AI waxaa noo fududeeyey helidda xogta si ka dhaqso badan kana faa'iido badan habkii hore ahaa in Google-ka ama buugaagta laga raadiyo. ChatGPT wuxuu noo furay saaxada hal abuur, daraasiinta fikrado cusub, waxaana developers ka caawiyey inay u qoraan code-ka si ka dhaqso badan kana fiican habkii hore. waxaana developers si fudud u samayn karaan debugging-ka ama xalinta errors-ka. waxyaabahaasoo dhammi waa faa'iidooyinka noo keenay artificial intelligence-gu. adigu intee laga isticmaashaa AI-ga? muuqaalkeena maanta intaas inoogu eegyahay. waxaan muuqaalkeena kan xiga ka hadli doonaa sida ChatGPT uga adeegsan karto nolol maalmeedkaaga, sida u qori karto prompts ku siinaya jawaabaha raadinayso, iyo features laga yaabe inaadan ka aqoon ChatGPT kuwaasoo yana aad ku caawin karaan. la wadaag muuqaalkan asxaabtaada, ana hilmaamin yaa subscribe dhahdo channelkeena KTech Somali. mahadsanid.